وهويني رير مسرع وكنو الإسلا دالك مصر داديدو waa 20 sano jir gabadhan yar ayaa hamigeedu yahay inay noqoto saxafi amba wariye ka hawlgalo warbaahinta dalkaasi balse waxa jira caqabado badan oo soo hareeyay nolosheeda kuwaas oo ay kow ka tahay inay tahay haweeney indhala arrintaas oo ka hor istaagtay in waxyaabo badan ay ku hamiyeysa ay faraheeda ka baxaan balse taa bedelkeeda waxay ku shaqaysataa xirfadda sawir qaadista iyadoo indhala waa arrin cajiib ah inaad aragtaan baad maqasho in qof indhaha naafaka oo ku shaqeeyo kamarada arrintan ayaa ka dhigaysa inay noqotay haweeneydii ugu horeysay oo iyadoo indhala ku shaqaysatay xirfadda sawir qaadista ee ku nool dalka Masar Isra oo ah haweeney daayar ayaa waxay ka qalin jabisay waaxda luqadda Carabiga kuriyada farshaxanka iyo jaamacadda Alexandria iyadoo indhala arrintan ayaa fajax ku abuurtay shacabka ay ku dhex nooshahay Isra ayaa qalin jabinteedii kadib waxay u dhaqaaqday dhanka sawir qaadista iyadoo ku beertay goobo ka caawinaya in iyadoo indhala ay dadka sawir ka qaadi karto arrintaasina waxay noqotay mid u suurta gasha dhamaystirka xirfadaasi kadib waxay wajahday caqabada inay dadku rumaysan waayaan inay xirfadaasi qaban karto waayo looma baran in shakhsi naafo indhaha uu ka shaqeeyo kamarada balse way ka soo gudubtay fikirkaasi ay dadku ka aaminsanaayeen waxaanay hadda caan ku tahay qaadista sawirro aad u qurxoon Isra ayaa sawirkeedii ugu horeeyay ka qaaday taalo ku taala maktabadda Alexandria sawirkaas oo noqday mid albaab badan u fura mustaqbalkeeda waxaanay ku guuleysatay inay sawirto dhowr galo oo muhiim ah ruwaayado iyo inay sawir ka qaado carwada caalamiga ee buugaagta Qaahire ee dalka Masar gabadhan oo wax laga weydiiyay sida ay sawirada u qaado ayadoo indhala ayaa waxay ku jawaabtay sida tan waahibo marka hore waxaan ogaadaa jihada iyo dhanka uu qofku iga xigo sidoo kale waxaan ogaadaa dhararka qofka aan sawirayo inta kadib waxaan dib uga baxaa qofka 2 mitir waana sawiraa Isra Ismaaciil waxay ku dadaalaysaa inay ka midho dhaliso inay noqoto saxafi xirfadla Isra Ismaaciil ayaa ku dadaalaysa inay ka midho dhaliso hamigeeda inay noqoto saxafi xirfadla arrintan ayaa qariib ku ah maqalka amba aragga dadka Shaafici Shaaciye Bulsha TV